maanta waxaa qaydhiinka lagu qaybsaday gebi ahaanba xisbigii dowlad deegaanka soomaalida ee jigjiga ka talinayay oo muddo 10 sano soo hogaaminaya deegaankaas. xisbigaas maanta sidii lagu qaybiyay haddii laydinka sheekeeyo dhammaantiin horta wada xanaaqaysaan meeshan inaad ka tagtaan baa ka yaabaya, laakiin ha ka tegine in badan baa laynii sheegay miina dareemin. xisbiga maanta waxaa lagu qaybsaday qaydhiinka sidaa inii sheegay. heesba waxay ahayd halla qale raqdeed baa lagu soo qamaamayoo qaydhiinkii baa lagu kala qaybsaday. qosalse wuxuu ka joogaa qumanaha dambeeye qiiqa baxay arkaya. qabqab dhaafay baa yimid, qabyo waa halkeedii qosol qoosimaad noqoy. marka xisbigii maanta waxaa lagu qaybiyey oo wax lagu qaybsaday qabiilka la dhaho ogaadeen ama dhulka la dhaho ogaadeen ee la baxay inuu dhulka uu deegaan ahaan waa hadda u fiirsada dhulka inuu deegaan ahaan ka degan yahay 40%. soomaalida kalena ay degan tahay 60%. si fiican u dhigeysta inuu dhul ahaan uu ka degan yahay ama deegaan ahaan uu ka degan yahay ogaadeenku dhulka 40%, halka soomaalidu kale ka degan tahay 60%. population ahaan ama tira ahaan dadka ku ogaadeenka ee dhulka ku nool maadaama waxaan qabiil lagu qaybsanayo dadka qabiilka ee ku nool wuxuu yahay 31%, halka soomaalidu kale ay tahay 69%. baladeyd aad i dhageysta. ani marka waan yaabay aad baan u fikray waxaan dhawr waxan xagee bay iska qaban laadahay. wicitaan dheer madaxtooyada rag wasiirada ku jira qaar saraakiisha ka mid ah dad ama family ha ahaadaan ama asxaab ahaadaan oon xog badan raadiyey waxaan soo ogaaday oo la ii xaqiijiyey gobollo magaca ogaadeen la sheegta ama maxaan ku dhahay dadkiisu ay degan yihiin in xisaabtaba aan lagu darin oo others loo xisaabiyey. gobollo dadku magaca oo jiidu ay sheegato in others loo xisaabiyey. hadda waa su-aasha aan garan lahay. waxaan is idhi war dadkan markii la yidhi deegaanka 40% bay ka leeyihiin, population ahaanna 31 bay leeyihiin oo soomaalida kale 69 ah. dhulkii faraha badnaa iyo laandheere isnacay baan nahay 7 gobol baan leenahaydi xagee bay ka baxday. baaritaan dheeroon sameeyey asxaab badan ama wasiirre ku-xigeen ha ahaadaan ama cabinet ha ahaadaan ama saraakiil ha ahaadaan dad badan oo xog ogaala oo meesha joogoon wacay sida ii sheegeen waxaa la yidhi gobollo badan oo magaca ogaadeen uu sheegan jiray baan xisaabtaba lagu darin. kow gobolka afdheer la dhahoon anigu ka soo jeedo waxaa la yidhi ogaadeenku wuxuu ka degaa 25%. hadda u fiirsada hadalkayga waxaa lagu xisaabo lagu qiimeeyey ogaadeenku inuu ka degan yahay 25%. sartu meesha ka quruntayna hadda inii sheego inay fahansiiyo waxaa weeyaan wasiiradii qaabka lagu qaybiyey. markii la yidhi sidee buu ogaadeen 125 oga degaya afdheer waxaa la yidhi 2 wasiir baa kasoo kala jeeda oo hadda wasiirri buuxa ah. kow wasiir waa gaasana wuxuu ka yimaadaa tuulooyinka degmada jarrata hoos imaada. wasiirna waa sheekhaala wuxuu ka yimaadaa degmada raaso. xageed ogaadeen u leedahay baa la yidhi lasa soo dhigay baash awaya ku matalahayay. mubaarak baa jooga xilki waa laga qaaday. afdheer waxaa matalaa la yidhi wiilkaa gaasan iyo wiilkaa sheekhaal. ogaadeen marka xageed ka degantay xisaabta waa la isku dhuftay. baashu meesha ka qurunta waa maalinkii wasiirada la qeybiyey in cagtarna uu yidhi cadaalad baan samaynayaa. cadaalad baan samaynaya kuwa uu lahaa cadaalad baan u samaynayaa baa maantana ku keenkeenay oo tallaabadu qaadada hor istaagahaya. waradeer ma soomaali baa asxaan leh. siyaasaddu horaan wayna sheegay waxay leedahay dan joogtaa laakiin saaxiib joogtaa ma laha. okay afdheer halkaa kaga soo gudub ogaadeen waxaa loo xisaabay 25%. war xagee weli iska qaban laadahay baa la yidhi. gobolkii doolo la dhihi jiray waxaa ogaadeenka loo qeybiyey 45%, halka soomaalidii kale loo qeybiyey 55%. anu waxaa inii sheegay wallaahi been maaha wax aana soo hubsanin oo aan soo xaqiijinin inama horkeenay, laakiin qaabka shaxda loo qaybsaday iyo sidii laiskula qaadaa dhigay ilaa maanta ilaa shalay baan dad xogogaal oo meesha jooga ama shirka jooga aan soo waraysto oon dhahay waxan sidee bay ku dhici kartaa, sidee buu ogaadeen ku yeelan karaa 40% deegaanka 40 population ahaana 131. marka waxaa la ii dhigay qaabki wax loo qaybiyey. afdheer waxaa la yidhi ogaadeenku wuxuu ka degaa 25%. labada wasiire ugu jirana waa nin sheekhaal iyo nin dir ah. kow gobolkii doollo waxaa la yidhi 45% baa ogaadeenka loo xisaabay halka 55 loo xisaabay soomaalida kale. waa ka soo gudub labada gobol halkaasi kugu daayeen lagaaga batay. gobolkii la dhihi jiray shabeelle asagana sidoo kale 35% baa la xisaabiyey. 35% baa la xisaabiyey. maxaa jareer ah maxaa xasan qudub ah maxaa nimankii la dhihi jiray deganaa iyakana adu garan mahayo yam iyo qadaadweyn oo dhan 100% waxaa la yidhi
soddon iyo shan bay ka leeyihiin lixdan iyo shanta kalena waxaa le adaris soo midna garan wallaahi hadda anigu waxaan asxaabtayda inii sheegahay maaha waxaan hadda ininka aan inagu niyad jabinayo ama waxaan meelo ka keenay anigu dadka goobjoog ahaa ee meesha xisbiga maanta ku jiray ee meesha soo qaaday baan warsee wax u dhacay sidana wax lagu qaybiyey baa layidhi deegaan iyo degmooyin iyo tuulooyin iyo daaqsin baa la xisaabinayaa baa lagu leeyahy okay goday iyo afdheer iyo meesha la dhihi jiray doollo sidaasay kugu daayeen waxaa soo hadhay gobolka la dhihi jiray jarar baa soo hadhay jararna waxaa loo qaybiyey 50-50 waxaa la yidhi degmo la dhaho waxaan weligay maqal daroor baa la yidhi degmo daroor la dhaho maanta igu horsada magaceeda daroor iyo gaashaamo bari iyo hebelkaay iyo macal dubadkaas adduun baasaa loo qaybiyey 50-50 bay noqotay baa la yidhi ogaadeenna 50 buu leeyahay idoorna 50 buu leeyahay intaas markii 4 gobol oo ogaadeen uu sheegan jiray bannaanka la mariyey maxaa kuu soo hadhay ogaadeen waxaa loo qaybiyey oo loo xisaabay gobolka la dhihi jiray qorraxay iyo nogob baa loo xisaabay labadaa maanta soo hadhay sooma qorraxay iyo nogob baa loo xisaabay oo weliba la nogob qaar baa lagula haystaa nogob weliba lagu yidhi qaar baa lagula haystaa oo ima wada lihid qorraxay iyo nogob baa magicii ogaadeen sheegan jiray yidhi waddanka ogaadeenay u bixinay ee 35 sano dagaalamay tigrey dhagaha ku dhuftay ee shiina shidaalkii u diiday ee balaayada ahaa ee caalamka laga yaqaanay meel walba safaarad ku lahaa axmed shido intuu kulkuleetar iyo qalin u keensaday iyo guleed kaniisad ba waxay dhaheen sideedaba ogaadeen oo laandheeraad dhulkan ka sheegateene bal maanta xisaabaan iskugu imaano laandheeraad dhulkan ka sheegateen inaad majority ka tihiin baad maxaan ku dhahay sheegateen xisaabaan iskugu imaano war degme hebel yaa deg war tuule hebel yaa deg war halkaa maxaad ka degtaan war maxaad ku leedihiin markii si loo waday ogaadeenka wuxuu iskugu imaaday deegaanka inuu degmo ama deegaan ahaan uu leeyahay 40% population ahaan iyo tiro ahaan ee dadna uu yahay 31% waa meesha ani 85 iyo wixii ka koreeyay aan sugahay xisaabtina sidaasaa lagu dhuftay waana u celinay asxaab dambe soo gashay afdheer waxaa la ogaadeen wuxuu ka dagaa 25% goday ama shabeelle waxaa la wuxuu ka dagaa 35% doollo waxaa la wuxuu ka dagaa 45% jararna waxaa la wuxuu waa 50-50 afartaa gool markay sidaa kugu dhaafeen ama shantaa baan dhaho maxaa kuu soo hadhay waxaa kuu soo hadhay waa qorraxay iyo doollo waa qorraxay iyo nogob lafteeda waxaa la yidhi 50 baa xaggaa u baxaysa iyadana waxaa la yidhi waa adaris iyo sheekhaal oo dhinac ka soo gelaysa iyo waxaana weligay maqal iyo qolyo kaloo magacood hadda aan garayn inuu igu adkaaday laakiin la ii sheegay xisaabtii sidaasaa la iskugu dhuftay kow jartuna waxaa ka quruntay maalinkii wasiirada la qaybsiiyey waxaa la yidhi waxanoo wasiira xaggee buu ka soo baxay dhulka haddiinan maxaan ku dhahay minority ka ahayn waxanoo wasiira xaggee buu ka soo baxay dad badaan waxay iska dhaway waxay odhanayaan ma dhici karti iyo dhulku muu guurayaa iyo war dhulku ma guuraya laakiin waxan waa siyaasad waxa la isku dilahaya waa siyaasad markii maanta maamulkii kaa bato oo meeshii maamulka u qaato waxa allaale waxa doontaa lagugu samayn karaa dhulkaada gacanta laga bixin kara durbo waxaa lasoo saaray war saxaafadeed laleeyahay oon alif ama kilalka soomaalida dhanba qori aan sharciyeysnayn laguma arki karo qori walba oo la qaadanhayo waa inuu noqdo qori sharciyeysan oo dowladda urtis garaysan arrinkaana uu soo baxay oo xaqiiqa ah qori walba waa inuu waxaa la rabaa qabal raba in lagugu gumaysto berri ka maalin waxaan kuu cuntamaynin markay nimanka adarista kuu keenaan oo dhahdo waan dagaalamayaa qori ma haysatid qori walba waxaa la yidhi waa inay dowladdu sharciyeysatay anu waxa waddanka ka soo tegay hargeelle oo nimanka geela ka imaanhayo 10 qori wato intay xeradii booliska la gataan oo caanaha ka gataan hayakoo deegta u sunayn qorigood maqaaxida shaahay ka cabaan axmaarka u imaado kusoo qaldaman waa la iskaga dhufan jiray soo adamiina garan nimankaas markii lagu leeyahay dhulku muu guurayaa makan war nimanka dhulku ma guurahay dhulka adigaa iskale waa sidiisii laakiin siyaasad baa lagu dilahayaa nidaam walba oo lasoo wataa laguu marayaa haddaad noqoto dagaal baan gelahaya hubki waa lagaa ururiya yakaa kaa saxiixanaya shidaalkii meesha hadda iyakii kaaga maamulkii kaaga wadbateen shidaalkii waxaan kuu qalmin baa laga soo saxiixaya dowladda federaalkeed mid kale aynugu daro waxaa la yidhi waxaa la rabaa tirakoob baa la rabaa deegaanka inuu ka dhaco waxaa loo soo xil saaray guleed kaniisad iyo ninka la dhaho axmed shide guleed kaniisad iyo axmed shidana natiijada ay wadaan ee hadda maantaba mustafa hortiisa ay ku qaybiyeen inuu ogaadeenku 45% ay ka degan yahay markii la dhaho tirakoobka dhulkaas meeqa weeye maxay gudbinayaan bay kula taadu dhegeysto ama daawadu adanku weydiiye nimanka maanta waxa la soo fadhiyo sidaa wax u qaybiyay markii loo dhiibay taladay dowladda federaalka ay u dhiibtay ee la yidhi tirakoobka deegaanka ka soo sameeya tiro intee dhan bay geynayaan gobol walbana tiro intee dhan bay ka keenayaan badisleeda adiguba caqligaada isweydii hawshu halkaasay maraysaa
ina cagjarna waa laga awood batay ina cagjar dadka qaar waxay leeyihiin waa nin aad waran haba adkaada ninkan laakiin oromo ku keensatay la soco ninkan oromiya dowladda Itoobiya keensatay dowladda Itoobiya waxa asaga dantiisa ku jirtana wuu samaynayaa waana laga awood batay ninkan gudoomiyaha xisbiga wuxuu wataa ciidamadii oo dhan buu wataa taageeradii dowladda federaalka oromadu wataa oo dhan buu wataa asaga ka awood badan maanta si walbood ahaato asaga ka awood badan wax walba oo maxaan ku dhahay Mustafa uu ku diidi karana dambi buu ooga dhigaya aan idinku daray wasiiradii maalinkii u horeysay Mustafa uu soo diyaariyay warqadahoodii la siiyay ninka hor istaagay dowladda ka gudbiyay dacwadda Axmed sidoo ahaa ilaa Mustafa lagu qasbay inuu ka laabto wasiiradii oo dhan hadda u fiirsa wasiirada maalinka hore 15 ba ogaadeen ahayd wasiiradu maalinka hore warqadaha siiyay Mustafa 15 ba ogaadeen ahayd maalinkii dambe in shida arinku farigeliyana 7 ogaadeen noqotay 20 adaris bay noqotay wixii inta ka dambeeya asxaabtan cod ku furaya waana soo qabanay fikirkeena wala wadaagaya insha Allah